بسم الله الرحمن الرحيم أنا هرت وحنا هاي نين وداني أو ودن ككينيا ولا شيء أو دولة كينيا قيب كه وحنا موقف كيوي هاي إني دولك ما بدأ كينيا لهذا هاي إني ودن كرو قادم كريم أما صوماليا هاتو أما تنزانيا هاتو أما ودمك لها هذان موقف كيوكا لكن ما دام أنك ولا راح أنك ودن كصوماليا حرير دير أو حق الدولة ده يا حق الشعب كبو ونقدر حيو وقت كستا وحن ديرها وإني خلاف كاسيتو لو حليو مد وناقه ولا بدأ الدولة خلاف كودا أي هوس وديان أو خلاف كودا أي حليان أو محكمتها يبوقة كلا ولا في عنها صومالي ده وحيد هذا لبدا وقف ولا لها خلاف كودا الله مرة ما إنه مغلطة وضدك جيرانك مركا وحان ليلها أنا كشقينا يا سيدي خلاف كاسيتو سي ولا لماء سي جيران لماء سي حريرك ود حيو لبدا أنا ودن إن لو حليو مدحوين أهورو كينياتا يا مدحوين فرماجو وحان كعصن لها يا دولة كينيا يا دولة صوماليا إني إلاليان وناقة يو جيران لماذا وين oo waqti dheer soo jirtay oo dadka iyo wadamadanada u dhaxayso inta la ilaaliyo badda hadda waxa la isku haysto waxa weeye shidaal iyo gas baa laga helay badan oo way jiri jirtay marka laakiin mowqifkeena waxa weeye mowqifka dawladda Kenya ani nin Soomaali baan hay laakiin waxaan hay nin Soomaali oo Kenyan ah laakiin waqti kasta waxaan ka shaqeynay sidii khilaafkaasayto loo xalin lahaa si wanaag ah oo u dhaxayso labada dawlad kadib markii arintan badda soo cusboonaatay in Kenya heshiisyadii ay la saxiixtay dawladda madaxweyne Farmaajo ay ka baxday oo ay kamid tahay in boorka lagu dhibo qaar kamid ah saraakiisha dawladda Soomaaliya arintaasi ma arinta badda la socotaa mise waa arin dawladda ayadu gaar ah waxa dawladda Kenya iska bedelay malaha wixii ay la saxiixtay dawladda Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo waxa iska bedelay malaha qof kasta oo wadanka anaga soo galo ama qof kasta oo maanta ka daga magaalada Muqdisho nidaam ahaan internationally waxa laga rabaa inaad aqoonsi ama visa ku gasho marka qof kasta aniga kula hadlayo marka wadanka Kenya ka baxay waa in baasaboorkayga la shabadayo madaxweynaha wadanka Kenya markuu ka baxay wadanka hadda kana dhaw jira baasaboorkiisa iyo fuuda uu la socdo waa in ay kana loo garaaco marka wax isbedel ma laho wasiirada Soomaaliya magaalada Nairobi haday tuban yihiin haday joogan ilaa 3 ilaa 4 baa joogan Soomaali badan baa joogta oo wadanka soo gashay hada wax lagu dhibaaya ma laho mid wajeerna waa mid ku salaysan nabadgelyada wadanka Kenya waa mid mas'uuliyad ka saaran madaxweyne Uhuru Kenyatta